كانوا ربنا كان ما ربنا كان ربنا كان لسوء عليو أخيرا نكوي الذي دنا لبس النضود يبرد دب هذنا الله أقبله أرنتاسي waxay keentay labada sanadood iyo barkaasi inay keenaan dib u dhac balaaran oo ku timid systemkiin doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu diyaar u yahay isaga iyo xukuumaddiisu in ay si hufan oo dhaqso ah ilaa doorashada madaxtooyada loo qabto oo aan kala go' lahayn dhammaan stakeholderska dalka waxaanu ka codsanaynaa inay tareenka dhinacooda qabsadaan oo ay doorashooyinka si hufan uga qayb qaataan qof kasta oo muwaadina oo reer Somaliland xuquuq dastuuriya ayuu leeyahay oo macnaheedu yahay inuu waxna doorto lana doorto miisaaniyadda qaranka ee maalintii dhaweyd golaha wasiiradu ansixiyeen waxay ku suntantahay miisaaniyadda doorashada qaranka gebigeeduba awoodeedii ugu faraha badnayd waxaa la geliyey doorashooyinka waxay ku tusaysaa in xukuumad ahaan aanu diyaar u nahay in hore loo dhaqaajiyo oo saacadda la laban laabo qaabka doorashooyinku dalka u dhacaya xataa haddii international communitygii taageeri jiray doorashooyinka haddaanay qaybtooda ka qayb qaadan xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay hore u socoto oo ay iyadu doorashooyinka noocay u yihiinba iyadu qabato waxaa halkaa ka cad oo aan ahayn wax lagu murmo sida ay uga go'an tahay xukuumadda doorashooyinka qaranku inay dhacaan inaha waxaan kaga baxayaa in doorashooyinka qaranku ay si isdaba jooga u dhici doonaan hadday tahay tii ururada iyo hadday tahay tii registrationka hadday tahay tii xisbiyada qaranka iyo hadday tahay tii madaxtooyada intaba xisbiyada qaranka loogu tartami lahaa kelmad waxaan ka odhanayaa qolada reer xamar ee shalayta hadasha ee Somaliland la talinaysa Soomaalidu waxay ku maamaadaa riyo hadday daba leeyihiin hadday dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahayn hadday cid la talinayaan oo wax yihiin waxay badbaadin lahaayeen shacabka sida ayaxa u dhimanaya sida kanaacada la buufiyey shacabka hortooda ugu dhimanaya ee 250 qof mar baa laga soo qaadayo guri hoostii iyo tirada 700 ama 600 ee qof ee dhaawaca la taahaya ayay tala uga baahan ee Somaliland tala ugama baahan kuwa talada uga baahan ee hoos jooga waa kuwa tawaawacaya ee marba 250 la waayo saacada gudahood dal tashaday waayo badan iyo waqti badan ka soo baxay leh waayo aragnimo uu ku xitaa haddii wax lagu kala duwan yahay siday uga wada hadlaan aan muddo 30 sanadooda cid faragelisay iyo cid wax u sheeganaysaa midna jirin ay dad isku tashaday yihiin marka waqti badan yay iskaga qaadina tooda ha ku ekaadeen in 200 qof qol hoostii loo geliyey oo lagu doortay iyo nin dawlad 4 jeer iyo 5 jeer one man one vote madaxweynayaal isku bedelay iyo golayaal isku bedelay iyo nin guri hoostii lagu doortay oo 200 qof gacanta u taageen ayaa maanta anaga talana siinay ceeb bay ku tahay ummadda reer Somaliland in hadalladaas oo kale soo gaadhaan taana qolada xamar ku fogaan maayo intaasaan kale tegista boocama ee ciidamada jamhuuriyadda Somaliland
ciidamada jamhuuriyadda somalilan waxay u xilsaaran yihiin goob kasta iyo meel kasta xilli kasta meeshii ay dalka damcaan inay tagaan hubiyaan qiimeeyaan xaalad kasta oo ka jirta wax ku cusub maaha jawiga ciidannimada ama ciidanka qaranku inay goobtaa iyo goobtii loogu talagalayba ay iyadana taasaan ku dhaafaya jaraa'idka la yidhahdo AP ama American Associated Press la yidhaahdo ayaa war khaldan ka qoray jamhuuriyadda somalilan oo odhanaya waxay siiyaan lacag dad badan oo sharaf iyo karaamo leh oo ay ka mid yihiin labada guri ee maraykanka looga taliyo ama ha noqoto sanadska ama ha noqoto golaha wakiilada waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanay marnaba arrintaasi jirin ee ay tahay dacaayad danaha jamhuuriyadda somalilan iyo xiriirka wanaagsan ee dowladda maraykanka iyo dowladaha kale reer galbeedka wax lagaga sheegayo lagu dacaayadaynayo laguna xumaynayo laakiin waxaanu aad ugu faraxsannahay xiriirka fiican ee aanu la leenahay dowladda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka in badan dacaayadda raqiiskiina ma noqonayso mid wax yeesha xiriirka labada dal iyo shucuubta danahoodu isu tagtay mid wax yeela ma noqonayso guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa khayr baynu isku ognahay maalin fiican